waa serious waa in laga daayaa farafaraynta waa in meel looga soo wada jeedaa waa inaan laynoo arag dad ku qaybsan tallaabada aynu qaadnay ee aqoonsiiba arrinta imika xisbiyada ilaa shalayto ragga xisbiyada ay ka hadlayay arrintaa ee doonaya inay waddankana mustaqbal ka sugaan waxaan leeyahay idinku xabad dabarka iskaga dhufanina daawadayaal waxaad kusoo dhawataan waraysi kooban oon ka qaadi doono suldaan abdiraxmaan good oo ka mid a madax dhaqameedka waaweyn ee somalilan suldaan ugu horreyn soo dhowow maalmihii ugu dambeeyey hadalhayn waxaa ka taagan arrimaha aqoonsiga gaar ahaan safaaradda somalilan ka furatay qudus bal adigu ka madax dhaqameed ahaan arrimaha maxaad ka odhan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وسلم آديات بقى مهتسنتين لقمان وأديجي تيفيجا جوا يوم مارتي هالوذينا ذي مكة إن أرنتا هذه سؤال شيء أرتوا قديد وين ومهيمة وميسان وين وعروس وغفر إذا قرن كسومال لان شعب يدور بقى أرنتا صو هو اعتراف كيو إنه كهلي إسرائيل دولت بيهوري سير قرن مدة بدو في الإداء إنها قصتها شعب كسومال لان arrintaa in wax hadalo oo dhexdiisa ka soo baxa ay dhacdaa waa halkii ugu lidatay hadday xisbiya tahay culimo hadday tahay madaxweyne hore hadday tahay wax u eeg khilaaf inaynu arrintaa ku qaybsannahay unu muuqdaa oo xaaraan waa liidnimo halkii nugu dambaysay waxa weeyaan qadiyaddaa waa in iskaga mid la noqdaa waa in la taageera innagu halka danteennu ku jirto ayaynu maraynaa sharciga caalamiga iyo qaramada midoobay wixii yaala ee xeerari waa inay xaqeena ina siiyaan markay xaqeena ina siiyaan bay waxay caddaynayaan aynu qaadanayna laakiin intaynu xaqeena raadinayna iyaguna aanayna siin waxaan soo qaadanayaa allah u naxariistay maxamed xabshiraax cigaal madaxweyniheenii cabqariga hadaloo maalin yidhi uri shaydaanna ha noqday wixii somalilan wax u taraayo waa la hadlayna shaydaan uma jeedin wuxuu u jeeday cid kasta oo somalilan wax u taraysa waanu la hadlaynaa marka hadday safaarad qudus laga furay tahay israa'iil oo lala xidhiidhay hadday tahay argentina aynu tegi doonno hadday tahay meel kastoo aynu wax ka helayno inta aynu ictiraaf felayno waa inaynu tagnaa haddii layna nafteena u daayo oo qarankeenna dani ugu jirto markaa taasi laba ma leh waa inaan taa la ysku khilaafin xisbiyada iyo madaxda kale ka hadlaysa waxaan leeyahay talaa leydin tala qaran baa leydin wixii aad tala gudbinaysaan ee addan u aragtaan gudbiya access baa u leediin inaad madaxweynaha kala hadashaan wixii aad tala haysaan laakiin wax khilaaf u ekaada oo dibadda u soo baxa oo qadiyadda ixtiraaf ku saabsan ninka la yimaadaa waa nin qaran dumisnimo ku sameeyey somalilan iyo shacabkeeda arrintaasu waa serious waa in laga daayaa farafaraynta waa in meel looga soo wada jeedaa waa inaan laynoo arag dad ku qaybsan tallaabada aynu qaadnay ee aqoonsiga marka waxaan leeyahay qof walbana taariikhda u qoraysa wixii u galo siiba arrinta imika xisbiyada ilaa shalayto ragga xisbiyada ay ka hadlayay arrintaa ee doonaya inay waddankana mustaqbal ka sugaan waxaan leeyahay idinku xabad dabarka iskaga dhufanina qadiyadda somalilan ictiraafkeeda iyo halka la tegaya wixii tale ee laga dhiibaya si wada jiraha loo dhiibo wax ka taataabasho oo kale oo loo arka in lagaga soo horjeedo yaanay dhicin shacbiga somalilan waxaan leeyahay isku duubni sameeya ilaashada dalkiina qarannimada ilaashada ictiraafkana meel uga soo wada jeeda wixii godololo aragtaana tala ku gudbiya yaan media la soo fariisan qolooyinka Soomaaliya hadallada ka soo yeedhay maxaa oran hadallada horta su'aal muhiim ah wallahi waan ku faraxsan inaad weydiiso inkastoo imika qorshe ay ugu jirin markii hore xasan sheekh lixda tanki juma uu hadlayay isagoo si aan sidii hore ahayn u hadlayay dadka qaar baa soo dhaweeyay oo madax dhaqameed baan arkayay macnaheedu boqor buur madow boqorkeena oo hadalka maartay u arkay sidii hadal dibacsan kale xasan sheekh wuxuu hadlayay si uu ka dhigayo in dadka dhibta inoo geystay ee aynu ka xantanayna ay ahaayeen talaskii dawladii maxamed siyaad barre maxamed siyaad barre dawladdiisii dabcan dhib bayna gaadhsiisay waa wax halkaa ina geeyey laakiin tegi isagu maanta aakhiradiisuu la tegey shar iyo khayr wuxuu lahaa ilaahiisuu la hor jooga maanta annagu maxamed siyaad barre ciilo uma qabno waxna uma haysano waxa ka xun waxa kuwii ka dambeeyey samaynayaan ee xasan sheekh kow ka yahay taasaa ka xun xasan hadduu isoo arko waxaanu ka cabanaynay aanu ka goosanay inay tahay wixii siyaad barre nagu sameeyey taad maanta samaynaysaa waa ka xun baanu leenahay fursad baa u taalla nimanka maanta koonfur madax ka ah hal fursadoo baa u taalla
soomaali inay walaalo noqoto oo isku dhaqan iyo isku diin iyo isku dad ahaato oo is-intifaacsato oo is-taageerto iyo inay cadow abadeeni ay ahaato labadaaba fursaddoodii gacanta nimanka maanta koonfurka madaxda xasan sheekh kow ka yahay ayay ku jirtaa waxaan leeyahay tiidin la quman doorta tiidin la wacan doorta jaaniskaasa haysataane ama qaada tallaabada ah inay dadka soomaaliyeed weligeed walaalo noqdaan ay wax istaraan ama qaada tallaabada ah inay cadow abadiya noqdaan oo isku duulaan weliba oo aan anigu arkaayo siday wax u socdaan haddaan la bedelin in dagaal la isku qaadi doono dhowaan marka qoladan intaasaan leeyahay